Yasmiin Jaamac Cabdibilo oo ka mid ah gabdhaha qurba joogta deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ee Soomaaliyeed ee degan qurbaha ayaa markasta waxay ka farxisaa iyadoo xubnaha la shaqeeya dadka masaakiinta ee ku jira isbitaalka weyn ee magaalada Laascaanood kuwaas oo markasta ay u soo dirto ari si ay farxadda ciidda ula qaybsadaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Bukaanadan ayaa waxay ka kooban yihiin dadka xanuunka TB-da qaba ee ku jira iyo dadka waararka kala jiifa, waxayna markasta la wadaagtaa farxadda maalinta ciidda iyadoona u soo marisa Cali Cabdinuur Xaashi oo ka mid odayaasha iyo waxgaradka gobolka Sool. Bukaamadan ayaa markasta hela xilligan oo kale maalintaasi hilib ay cunaan, waxayna si weyn ugu farxaan. Dadkan ayaa waxay yihiin kuwa aan gacanta waxba ku haysanin, dhaqaalana aan helin. Yasmiinna waxay ka mid ka tahay dadka sida weyn ugu warhaya bukaanadaasi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaan bukaan jiifka isbitaalka Laascaanood ari ay ugu talagashay inay ciid qashaan si ay muslimiinta ula ciidaan. Yasmiin Jaamac Cabdibilo oo si joogta ciid walba u soo ciid sanad walba Ramadaanta ciidda u soo dirta $500 ari loogu iibiyo iyadoo caawimooyinkan dhakhtarka u soo dirto si joogta ugu xidhan. $500 bay u soo dirtay, waxaan u soo iibinay 9 neef oo ari ah. baaqiga ka soo haran waxaan u soo siinaynaa insha Allah tacaala timir haddii Ilaahay ka dhigo. waxaan ditoorka ugu wareejinayaa markaas 9 neef ariga ah oo Yasmiin Jaamac Cabdibilo ay soo dirtay $500 ay ugu talagashay bukaan jiifka isbitaalka Laascaanood ciidda inay kula ciidaan muslimiinta kula farxaan. Yasmiin si joogta ayay uga warhaysaa bukaan jiifka iyada iyo dad kale wax la soo ururiyaba. waxaan leenahay Ilaahay idin barakeeyo sida dadkiina uga warhaysaan oo u xanaanaysaan ee u dhaqaaleysaan. Ilaahay ajarkeeda iyo xasanaadkeeda ha idin siiyo, jannatul firdawsana ha idin ka waraabiyo, dambigiina iyo dambigii waalidiinkiina ha dhaafo. duco had iyo jeer aalaaba waa u ducaynaa Yasmiin Jaamac Cabdibilo. ilaahay haddana ma hayno cid ku dayato sida ay sida joogtada isugu soo xilqaanto isbitaalka isugu soo xilqaanta. dadka kale had iyo jeer waa sheegnay, waxaan leenahay war ku soo dayda Yasmiin Jaamac Cabdibilo iyadana Ilaahay khayr iyo xasanaad ha siiyo, ubadka iyo reerka Ilaahay u barakeeyo, risq Ilaahay u wasiiyo, jannatul firdaws Ilaahay ka waraabiyo. wa sallallahu wasallam ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam. Laascaanood Dr. Cabdi Maxamed Buraale aad baan ugu mahadnaqaynaa Yasmiin Jaamac Cabdibilo inay New York nooga soo dirto lacag isbitaalka Laascaanood jiifa, khaasatan bukaanka isbitaalka TB-da jiifa. lacagtaasoo dhan $500 aad baan ugu mahadnaqaynaa. bukaankan oo ka hadlaya codkooda iyo codka shaqaalaha isbitaalka oo dhan aan ku hadlaya aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa Yasmiin iyo ciddii kale wehelisay ee lacagtaas soo dirtay oo dhan gidigood aad baan ugu mahadnaqaynaa. ciid baa si fiican loo qaabili doonaa haddii Alla idmo. awgiin iyo hadiyada aad u soo dirteen ciidul fitriga aad u soo dirteen aad baan ugu mahadnaqaynaa. waa in صلى على سيدنا محمد وحنا بكون كيفك اسبطك الله سبحانه وديديدا ياسمين جامع Cabdibilo marar horena way noo soo dirtay caawimooyinka iyo dhaqaalaha iyo hadii Ilaahay ku soo yahay waxtarka. maantana ariga kan bay noo soo dirtay. waxaanu leenahay Ilaahay jannadii firdawso kaaga waraabiyo, annagana dhacaamo shafeela Ilaahay anaga siiyo. waanuna kuugu mahadnaqnaa walaashayaba tahay nagu ogsoon cusbatalka. walaalaha kalena waxaanu leenahay sida ay gabadhu noo dhaqaalinayso waa in deena loo ogaada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.